aniguba dadkaanay danadii ku gaadhiyo dakharka aqarisii madegana warkaagu madegana warkaagu baldhacoon isugu bay wixii kuugu daraanshe allaga daweey dhaxaan murugiyo harad mudane maantay curatoy mataana hayse an maalo hashi namaan deeqe magowdo andhadi gola marise an maalo hashi namaan deeqe caruurta caloosha ku jirta xatee farmaajo dhaar farmaajaygeed caruurta caloosha ku jirta ما شاء الله سجود لو دعيا مال والبا waan garanayay inaan ka gudbayo garabkiina soconaaye geeshkayagoo guulaysta 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 guulagu reeyo guulaysta marka madaxweyne farmaajo uu guulaystay guusha Allah noo wado wakaas amiin ugu horeyn ka mid noqo saaxiibadeen oo nagu soo biir daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Asal Films maantiyaana la jooga sharaf ay noo tahay fanaaniinta ugu xasaanada badan midkoodii ugu xasaanada badan weligii ma wasfaraysan caawa abshir bal soo dhaw mas'uul ku soo dhaw Asal Films saaxiib horta looma dhanade maanta inta la dul dhigtay malihi aanu daba socod baanahay aatiyaa marka nin farxaan muuse ciga farxaan xidig la yiraahdaanahay ما شاء الله حدق ما شاء الله marka waxa weeyaan oo ka daba tagay ama daba socod u ah fanaaniintii qaranka ummadda Soomaaliyeed ee dhagahooga maartay wax badan ku shubay wadananimo iyo jacayl iyo maartay bogaadi ee maaweelo ku shubay marka fanaaniin waaweyn baan la heesay oo ay ka mid tahay Maryal Muuse Ciise Botan ما شاء الله marka oo qaranka Soomaaliyeed yar iyo weyn kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwa dhaxba garanayaan iyo Allah oo naxariista jin Allah ka warabiya Saara Ahmed Jaama ilaahay oo naxariista oo xidigihii waa bari kuwii ugu doolka roonaa iyo Aamina Cabdilaahi Xirsi oo iyadna maartay fanaanadii qaranka ah فنانين صدق هذا وحوي وقرنكي وبري حضورك أها أو أمين عبد الله عرسي تاي هذا عبد الرحمن هو يديد صح أو فنان الدائرة دنبنا كذا بقاتي هو يديد مركا وحوي عاونا إن برنامج ماشينا أصل فيلمز وحوي أنه صوبر باران إلهي أمد الصومالية wax fiican u sheega jaantaar ragon bay noqotay haday heesan noqoto iyo haday maawiile noqoto iyo haday wax sheeg noqotaba anay gaarsi iyo laak iyo scriptsar maxay wax script anu ma aqaanaba sababtoo baalka ma isticmaalo si fiican ma garanaysaa marka waxa weeyaan ilaahay ka yaaba oo diinta ka yaaba oo dhaqanka ka yaaba oo ummadan Soomaaliyeed dibtu daashatay godkii way ka baxday waxay hiigsanaysaa adduunka inay noqoto maartay role model ama Afrika iyo adduunka dalkan waxa weeyaan wax soo saar buu leeyahay khayraad badan buu leeyahay dal 3 bilood oo qura wax beerta oo Yurub iyo Mareykan iyo ku yaala inaan gacmaha horsanoon cirka eegno ma hayna dhulkaan eegno dhulkeena khayraad baa ka buuxa dhulkeena aan jundi gelino baahida aan ka baxno oo buuxnaanta inaan inaga kuwii loo baahanayay baan hay kuwii wax u baahanay ilaahay baa ina buuxiyay khayraad baan carabtu waxay leedahay shidaal qura siigada indhaha ka qaadaysa inaguna wabigii beerihii you name it oo diamondkii dahabkii wax walba ayuu ilaahay nagu manaystay
marka ilaahay shukri intaan u shukri lahayn inaan inagu isku noqono oon qoorta isgoyno oon aan dadkeennii baahida maanta jidka Makaal Mukarrama dariiqa hablaha caruurta yar iyo dumarka giidaarada fadhiya roobka ku daaya dabaysha siigada indhaha ka galayso ilaahay ma badina inaga badnay marka waxa weeyaan waxaan ilaahay Soomaali wadani ha noqoto Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo guul iyo gobonimo de inna waan ku darsanayaa wixii calooshaydu jeceshahay waxa la yiri wixii calooshaadu jeceshahay ba afkaaguna ku halmaama madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo sida leerka ay hor yaala ay dhalinyarta kamarada ama wax duubaysa ay iigu shideen dalka u shiday weeyaan sababtoo ah xildhibaankii la isla bari jiray maanta waa lagu dagaalamaya 15 baa kursiga kastaba u sharaxan waxa weeyaan hamigu gishay qabkii Soomaaliyeed baa soo noqday sawir baa noo muuqda waxa weeyaan isqa qabsiga inta laga tago dalka nin walba wadani ha noqdo dankiisa ha qabto sidii aan adduunka quruxda aan leenahay midabka aan leenahay iyo geeska adduunka meeshuu ilaahay bugucda meeshuu ina dhigay waa meesha adduunka ugu qaalisan wixii ugu qaalisnaa adduunkana waan haysanaa marka wabillahi tawfiiq Soomaalina ha noolaato ma mandeeq sibay ku timid waxa weeyaan waxay odaygii qaadi jiray Maxamed Axmed Kuluc baa la yiraahdaa oo dhintay Allah naxariisay London anagoo joogna wuxuu yiri maanta farxaan oo muuqeegiina adaa leh codkeegiina adaa haya waxaan qaaday Aamina Cabdilaahi heeska aan la qaaday baldan uu iskugu bayn iyo qaadi jiray ruwaayada marka heesku ii arkay aan Aamina Cabdilaahi la qaaday aniguba dadkanay danadii ku gaadhiyo dakharka qarisi madagana warkaagu baldhacoon isugu bay wixii kuugu daraanshay halaga dawey heeskaas kolka ay maqlay waa uu hambaliyeeyay uu fadhiyo wallahi way kacay maanta way hooseeyaa markaasuu yiri heeska aan maal hasheena maandeeqna xaradhaamay gelinaysaa ummadda Soomaaliyeed ee maanta kala tagtay si aad u qaad si ay u xasuustaan wadannimadi iyo markii Soomaali qabka lahayd ilaahay baa qabkiina imka noo soo ceshay oo fadliga inta ilaahay ka sokeeyay shimbir malayku ilaahay noo soo diray Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo أنا ما دام فنان سومالي عام هاي فن كان الصامين عدس أيات كل هذا طبعا مدحوينا فرماجو مالكي دين سنة بود بوشدي الحمد لله سومالي ودنا ويقتهي سفيان أبوان عن ربين هذا مقعد يصير شيء وحوير عروش كوجرت حتى فرماجي يدعر فرماجي يجي عروش كوجرت ما شاء الله ما شاء الله سجود لو قد دعيا مال والله محد حس وسمين ويدي فنان ورده هاس ده أنا يمكن أنا ليه هاس هذا ما كرناش هاس تا وحوي مركان قاضي يو جوجي جوس بدلها أو الله ونحرسته اللجن محمد أحمد كله ورنك مسرح الصوماليات فنان كمسرح اللورنجري أي فنانين تكون ضيدان سيب حسن أدني فنانين تي عام بحيوردن هاي كود ضيدان دحان مروجيو harad mudane maantay curatoy matana hayse an malo hashi namandeqe magudo andadi golla marise an malo hashi namandeqe marka madaxweynuhu tukulu jecel yahay baa jiro oo qaado oo Allah u naxariiste ay qaadi jirtay boqoradii codka Soomaaliyeed Seynab Xaaji Cali Baxsan oo ay ahayd ay qaaday 64kii ya sax oo tiraado waan garanayay inaan ka gudbayo garabkiina soconaaye geeshkayagoo guulaysta guulagu reeyo guulaysta marka madaxweyne Farmaajo uu guulaystay guusha Allah noo wado wakaas
آمين. الفنان حدق waxaan maqalnay in aad musharax xildhibaan aad tahay xilligii xasan sheekh oo laga qaatay oo aad ku guuldareysatay laakiin maanta rajadaada ay boqolkiiba boqol ay dhowda bal maxaa ka jira arintaas daawadayaasha ما شاء الله وما سنتهي وسؤال لو بهن yahay waxa weeyaan 3 jeer ba xildhibaannimadan la iga maruursaday ma garanaysa oo si musuqmaasuqa oo khaldan loo qaatay marka way aragniman ka qaatay tanise maanta qaada ama baashi maartay musuqmaasuqa habeenka madow dadka la qaadanaya ma warqad guri madow lagu qorayay maaha cadceed duhur joogta sacab laguma daboolo xalaalna dharaar cad baa la qashaa marka waxa weeyaan de qofku kolkuu tuugayay dadka tuugun buu moodaa se bahashani waxay u dhacaysaa si xalaala oo qofna lagu xadgudbayn oo marka waxa weeyaan maadaama ay muddo soo daba jiidanayay waxa weeyaan leer baa shidan leerkaasina qof musuqmaasuqa si suuq madow waxba ma dhacayaan waan ku kalsoonahay de dalkuna imika waxa weeyaan xilligana waa xilligii wadaniyiinta hadda awal kuwa daldumiska iyo dal iibiska iyo maartay qaada ahayd maanta waxa weeyaan haday madaxweyne tahay oo madaxa meesha u sareysa ma la taabto waa madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo ciidankuba waxay yihiin dad wadaniyiina oo dalka iyo dadka iyo diinta u dhaartay inay caqabadii Soomaaliya haysan jirtay laga gudbay marka tii bilow bay ahayd afartii hore ee madaxweyne Farmaajo Ilaahay ha sharfe imikana wax qabadkii iyo horumarkii iyo loo dhaqaaqayaa haduu alla qadaro waxaan Soomaali oo meel walba joogta ka codsanaya inay madaxweynaheena qaranka u duceeyaan waxa weeyaan Afrika iyo Yurub iyo adduunkaba Ruushka wadiga arkaya intaasoo sano ku soo noqday Putin Rwanda dhowr iyo 30 sano haysta wax soo saar ama wax qabad buu sameeyay madaxweyne 3 sano 4 sano oo walibana lugta la haystay oo marnaba helin fursad uu dalka wax ugu qabto buu ciidankiina dhisay qabkii Soomaaliyeedna soo xishay hadii wada shaqeyn sida ra'iisul wasaare Roble ula shaqeynaya loola shaqeeyo baasha halkan la islama soo gaareen imikana waxaan leenahay caanadaatay dabadood la qabay dalkii wiinoo dihin yahay dalkii doorasho loo socdaa qof walba qalbigiisa Ilaahay noo soo jeediyo Soomaali mid hawada noqoto qalbigoogana Ilaahay burcad isku mariyo oo ha isku soo jeediyo موقفكين waxa weeyaan hiigsiga madaxweynaheena qaranku iyo qabka uu noo soo ceshay iyo hawsha halku u socdo Ilaahay ha garab gale garab joogsano oo yar iyo weynba aanu ducayno oo salaada sujuud ugu ducayno madaxweynaheena qaranka ee qabkii ee maxaabiistii ana xabsi waan soo maray maxaabiista ninka maanta dalka lagu soo ceshay inta uu madaxweynaha ahaa ayuu ahaa ciidan tayale oo koonkooga waxay ugu soo dhacaan waa markii ugu horeysay inta marka waxa weeyaan ciidankiina uu noo soo noqday dalkiina maxaabiisteennii lagu ciiri jiray adduunyadoo dhan way inoo soo noqdeen dadkii baryootanka laynoo arkayna innaga layna baryay بإذن الله إن شاء الله مركا سومالها قوليساتو السلام عليكم داوديال عاو برنامج كان وحا نقل قيب قلي فنانك عانك الفنان حدق هذا كاميرا ذو حاينو هاي هلال أبد إيمان هلال يونتوي برنامج كان وحا قعن وين كجيستي هلال يوكي قعن كجيستي وبرنامج كان عابه صورة جلسي فنان آديان كايوم هاد علينا بدي برنامج كان آديان waxaan leeyahay Soomaali guul Soomaali ha israacdo ha guulaysato Soomaali waa mid assalaamu calaykum daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid